16 Diseembar maalinimo Khamiis ayay u aanbabaxeen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si shirka iskaashiga Afrika iyo Turkiga ay horgeeyaan qorshaha dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan la macaamilka dawladda iyo dadka aynu walaalaha nahay ee Turkiga. waxa uu ahaa socdaal shaqo oo muhiimad weyn u leh horumarinta xiriirka walaalnimo, iskaashi iyo dheef wadaag ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirkani waxa uu si qoto dheer u soo bandhigay xiriirka miradhalka ah ee Soomaaliya kala dhaxeeya Turkiga, mashaariicda iskaashi iyo maalgashiga laba geesoodka ah, mugga ganacsiga iyo isdhexgalka bulsho ee labada dal, isagoo uu adkeeyay muhiimadda in la horumariyo xiriirka Turkiga iyo qaaradda Afrika. fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee ka jira Soomaaliya ayuu soo bandhigay sidoo kale madaxweyne Farmaajo isagoo uu ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda xiriirka xididaystay ee Turkiga iyo Soomaaliya. Excellencies, distinguished guests and brothers and sisters, Turkey is a valuable supporter of Somalia's development. In this sense, Turkey is a true brother, ally and friend of Somalia. marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin, Turkigu waa taageero muhiim ah oo garab u ah horumarka Soomaaliya. marka taal loo eego, Turkigu Soomaaliya waxa uu yahay walaal, xulufo iyo saaxiib dhan ah. qaran ahaan aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa uguna qadarinaynaa Turkigu doorka horumarineed iyo dadaalka uu ka wado dalkeenna. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada uu joogay Istanbul waxa uu kula duceedyo la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha martida loo yahay ee Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan, oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga. sidoo kale waxaa kulanka diiradda lagu saaray dardargelinta qorshayaashii hore ee iskaashiga dhinacyada amniga, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, maalgashiga iyo bilaabidda kuwa hor leh oo qayb ka ah qorshaha cusub ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Turkiga. labada madaxweyne ayaa wadajir hoosta uga xariiqay muhiimadda ay labada dal u leedahay horumarinta iskaashigooda ku dhisan ka wada shaqaynta danaha labada qaran iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay kor u qaadidda xiriirka ka dhaxeeya dalalka Afrika iyo Turkiga. madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan ayaana bogaadiyay guulaha la taaban karo ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ku tilaabsadeen, isagoo uu ku dhiirigeliyay ganacsatada Soomaaliyeed inay wax soo saarka dalkooda u suuq geeyaan dalkiisa Turkiga. labada madaxweyne waxay guud ahaan ka wada hadleen qorshayaasha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhaxeeya iyo iskaashiga, taasoo ay ugu horeyso dhinaca amniga, horumarinta dhaqaalaha, wax soo saarka, waxbarashada iyo caafimaadka iyo mawaadiic kale oo culus oo labada madaxweyne ay isla soo qaadeen. markii kulankooda uu soo idlaaday maanta oo Jimco ah, waxaa labada madaxweyne ay wada oogeen salaadii Jimcaha, halkaas ay ku ducaysteen, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in xiriirkan walaaltinimo uu yahay mid soo jireena isla markaana ay la sii dardargeliyo. madaxweynaha Rwanda Mudane Paul Kagame oo uu Istanbul kula kulmay ayuu madaxweyne Farmaajo kala hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada amniga, ganacsiga, maalgashiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. madaxweynayaasha ayaana isku raacay xoojinta iskaashiga iyo horumarinta wax wada qabsiga ka turjumaya danaha iyo yoolasha labada qaran ee Soomaaliya iyo Rwanda. madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha golaha madaxtooyada dalka Liibiya Mudane Maxamed Yunus oo kulan duceed ay yeesheen ayay kaga hadleen iskaashiga iyo xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Liibiya iyo sidii labada dal uga wada shaqayn lahaayeen iskaashiga dhinacyada isku socodka, amniga iyo siyaasadda. 19 Diseembar 2021 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Turkiga, iyagoo la wadaagay dareenkooda ku aadan baahiyaha ay qabaan jaaliyaddu. madaxweyne Farmaajo oo dhankiisa uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo shacabka Soomaaliyeed, horumarada ay ku tallaabsatay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qorshayaasha laga dhur sugayo ayaa ganacsatada iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Turkiga ugu baaqay inay gacan ka geystaan gurmashada shacabka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu waxyeeleeyeen.
fursad kale ayay ahayd in madaxweynaha jamhuuriyaddu qaabilo dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ka tirsan isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista Erdogan ee Muqdisho kuwaasi oo takhasus sare ku qaadanaya isbitaalada dalka Turkiga. madaxweynaha ayaa ku booriyay ardayda in ay ka faa'iideystaan fursadaha aqoon kororsiga ee ay heleen si ay mustaqbalka ugu anfacaan dalka iyo shacabka Soomaaliyeed una daboolaan baahiyaha caafimaad ee ka jira dalkeena. sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu qaabilay qaar ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga oo uu kula dardaarmay inay qaataan doorkooda ku aadan wargelinta, wacyigelinta iyo horumarinta dadkooda. safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Turkiga oo guul ku soo ilaaday ayuu ugu dambeyn maanta dalka dib ugu soo laabtay.